baadiya ayaa saraka cooyid ya rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona marka ninkii araabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba ka'bada rabbigeega ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waan nabad galnay buu marka buu nabigu soo noqo saad ugu nabad gashay buu kaydi bal ii sheeg wuxuu waa kariim ilaahay waa kariim haduu doono iska kaaya cafin buu macid baa isaga qabsanaysa buu waa kariim كريم وين نقطة قف لله أنولو تاريخ الصحابة كتلا سيرة علي بن أبي طالب من بايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين دون حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري نينكي ugu itaalweyna gaalada ayaa soo dhaco yiri hal min mubarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya Ali baa u dhacay radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yiri gali markuu sidina Ali ibn Abi Talib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuf wajiga lagaga tufay markaasuu Ali qandhufa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulku jiifa Alina seeftii buu haystaa qandhuf baa lagu tufay Ali oo sareeya uu ka kacay Ali saxaabadii waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuf kugu tufay war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dina ka baqay buu lillahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici as-Sulami rahimahullah ninka la oran jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaan cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almawtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudan walqabru baytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan والقيامة موقفي ماشا اللي جوجينينا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بود عنك انت سو مرحلة نيك اي سوغيسو isagu haduu qosle ha qosle buu yiri anu tayda ka waramaya buu yiri inta noolahay oo himba nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam magaalada Madiina soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yiri saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yiri inta aqalka dhisaysaa malagi suurta afuufayay waa Israafiil alayhi salaam ayaa buuqi qaatay buu rasuulku yiri foonitii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyay markaasuu sida u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalka markay maqleen waxayba moodeen inay saacadu bari ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaas ay yiraahdeen ya rasuulallah maxaan idhaanaa noo sheeg markaa buu nabigu waxa tiraahdaa xasbunallahu wa ni'mal wakiil والله مركو آخرة كلا هلايو مركو جنة كلا هلايو مركو نارت كلا هلايو مركو قيامة كلا هلايو درين كوكو وحوها سواحي جنة دي النار هذا ياركي عن إيش كوها يا إنك أنا ما أنت ما شاء الله ضدك مسلمين تدرين كاس ما أنت ونقول يريح إلا من رحم ربي مويانا عبد الله بن عمر انتو ما طفيل بوكو رنجري إن مري الرعب ورنجري حقين تقنا سوقا تقنا سوق يوم يصوب حيان هذا مالك قالوا لي نمر الراع هذا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سو مرقوا دور عيسى مرقوا سوقي كعل علي وكعل علي بوكير يا ابن عمر سوق وان قيسا مالي والبا بدعنا كما سو يبستين بدعنا وما يب قيسين بدعنا ما سو بايعدين ما لا هدتكم فرديانا نما فريسيسين waralkan inay fariisi buu halkan noogu sheekay buu ka yiri oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn umar baa ku yiri warkaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli as-salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka ina salaano baanu ka lahaynaa buu ka yiri assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baanu ka lahaynaa waa duco weeyaan ducada baanu ka lahaynaa muslimiinta nu ducaynaynaa
iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baanu ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kallahaynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayaan saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu may ma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu arsaaqadu ay kuu furmiyeen meelaha innagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaa ku dagaalamayna dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war malihiye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda alle iska keena qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu yidhi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa lidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen
waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام ورياض نبي محمد بن ليه دقيستا بني آدم وصلت با كجرتا هدي هاجاكتو جركو دم با هاجاجي هدي باناتنا جركو دم با بانان وحمان تاسنا وقلبك أبو رسولكم قلبك أنا وح كلمة هاجاجيان قلبك لا عقمة هاجاجسو قلبك وح كلية هاجاجيا وأمرك يجكت إلهي معرفة ديسو معرفة الله عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي الضوميه سي الضون كميدو وياري مالين وعود العقد قال أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي بكير حر وانكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دي بددو دقنا ريب دم ميل ليدا وعثمان بن عفان باكود هلكا اوغور ادغو وايو ان زاهد ابوها قرنيغي نبيغاد مودا inuu joogay isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali ariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu abu dar al-ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaama hinde man baa lacag diidaya iska jecelahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amirkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yidhi lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yidhi abu dar u gee lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaasii ka dhabuu yidhi markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abu dar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada ha ka baxee i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo i naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abu dar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buuri marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wada cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abu dar al-ghifaari Usmaan bin Affan Allah raalli ka noqdee nin baa nabigu yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u taga buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affan wuxuu arkay Usmaanoo khaadimkiisa ku haysta
dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay ismaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebiga ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacaguu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen cusmaan binu cafaan cumar buu nebigu u diray maka markii sulx alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu yidhi aniga may buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii iyo raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahina dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seefta oo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على قصصا